waxaa degmada Buulaburte soo gaaray ciidamadii ka soo ruqaansaday toddobaadkii aanu ka soo gudubnay bilowgiisii magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. ciidamadan oo isugu jiray ciidamada dawladda Soomaaliya iyo ciidamo ka kala socday dawladaha Djibouti iyo Itoobiya. ugu horeyn duqa degmada Buulaburte Maxamed Fiido Cawaale iyo gudoomiyaha degmada Buulaburte Cabdi Daahir Guure Karoore ayaa saraakiisha hogaaminaysa howlgalka ku soo dhaweeyay degmada Buulaburte waxayna sheegeen inay soo dhaweynayaan howlgalka ka soconaya gobolka Hiiraan. dhammaan saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed maamulka gudoomiyaha degmada dhammaan horta waxaan ku soo dhaweynayaa salaanta islaamka salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. soo dhawaada degmadiina waxaan ugu soo dhaweynayaa degmada Buulaburte ku soo dhawaada mar haddii aan ka hambaliyeen arinta dhacday oo howlgalladan waqti dheer aan sugeyn hadaan nahay maamulka degmada iyo bulshada degmada Buulaburte waxay go'doon aheeday about 5 sano wax la mid ah waxaan caadi ahaynay nolosha caadiga ka dhacday wax lagu xisaabi karaa ma jirin marka ku maasantahay dawladda federaalka iyo dawlad goboleedka heshiiskoodii kadib inay ciidamada falgalaan guutada shanaad oo mataqaana uu yahay taliyaha Farax Kuushin ee qaybta 12aad oo abaanduulaha General Saalax waa maasantihiin dhammaan shacabka reer Buulaburte waxa ugu baaqaa inay garab istaagaan ciidamada dhammaantood ay kaashtaan qaybaha kala duwan haweenku inay garab istaagaan ciidamada dhalinyaradu ay garab istaagaan sidoo kale waxaan rabnaa inaan dhammaanteen hadaan nahay maamulka degmada iyo bulshada gacmaha isqabsano ciidamada aan la falgalno. taliyaha qaybta shanaad ee gobolka Hiiraan Faarax Axmed Faarax Kuushin iyo abaanduulaha guutada 27aad ee labada gobol Saalax Maxamed Qaasim ayaa faahfaahin ka bixiyay howlgalkii maalmahan ka socday inta u dhaxaysa degmooyinka Beledweyne iyo Buulaburte oo ka wada tirsan gobolkan Hiiraan. annagu waxaan ka soo baxnay Beledweyne anagoo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka AMISOM ah in muddo oo 10 casho ku dhow ayaan wadada ku soo jirnay intaas cadawga waa dagaalaynay waan is arkaynay dib weyn waa gaarsiinay annagana wax dhibaato ah saa u badan ma aysan soo gaarin ciidanka socodka ku yimid waa u hambaliyayna intana soo dhaweeyay maamulkana waa u hambaliyayna howlgalkana waa sii wadi doonaa insha Allah hadii Ilaahay idmo ma joogsan doono howlgalka cadawgalka kama caajisi doono meel kasta oo joogo waa loogu tagay insha Allah fariinta aan u dirana waxay tahay war waa leeyday qaldee hubka inta dhigtaan ku soo biira dawladdiina ku soo biira maamulkiina ku soo biira soo dhawaada haddii aad diidaan waa leeyday ka daba tagayaa meel kasta aad gashaan. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay soo dhaweynta wanaagsan ee shacabka reer Buulaburte iyo maamulkoodaba ay ciidamada qalabka sida u soo dhaweeyeen aad iyo aad aan ugu faraxsanahay. waxa kale intoon u mahadnaqaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed khaas ahaan guutada shanaad oo uu hogaaminayay Colonel Faarax Kuushin iyo saraakiisha kale iyagoo kaashanaya ciidamada AMISOM baan gacan saar ka leenahay. howlgalkii ay ka soo bilaabeen Beledweyne oo ay ku yimaadeen degmada Buulaburte howlgalkaasna ma joogsan doono horay u sii socona. dhammaan shacabka Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa waxa hadda howlgalay waa hal guuto oo kaliya. waxaan idin tusinaynaa haddii baan ladin sheego ladin yiri ciidamada qalabka sida awood ma leh waxa hadda soo howlgalay waa hal guuto qaybtii oo dhan qaybta 27aad oo mas'uul ka ah gobolka Hiiraan iyo gobolka Shabeellaha Dhexe awoodeeda inteeda kale inta ay maqan tahay halka guuto waajibaadka ay fulisay iyo sida muxuu ahay nimanka nabadiidkii ay muxuu ahay uu gacan sareeyay mar walba oo ay muxuu ahay buudka ugu lutumato waa arkayseen. waxaa xusid mudan in degmada Buulaburte ay ciidamo soo buux dhaafiyeen maadaama ciidamada Soomaalida iyo kuwa Djibouti ay gudaha u soo galeen magaalada halka ciidamada Itoobiya ay degeen airportka oo ku yaala dhanka waqooyi ee degmada Buulaburte. Cabdisalaan Maxamed Ibrahim Cabdisalaan Habis Somali News Buulaburte.